caawi maanta taariikhdu tahay 27 bishii 3aad 2025 waxaanu maxay ahayd ku wareejinaynaa xarunta qoolbulole ee caafimaadka ambalaaskii labaad maxay ahayd maadaama ay muhiimad weyn noo leedahay qarankana u leedahay degmadana u leedahay gobolkana u leedahay in maxay ahayd caafimaadka sare loo qaado mar walba hooyo dhiig baxday maxay ahayd timaado in maxay ahayd emergency gaari waayo gaarigani wuxuu adeegi doonaa tuulayaasha bariga degmada Salaxley xaruntiisuna waxay noqon doontaa hadii la yiraahdo qoolbulole halkaas aanu taagnaan doonaa kamana soo dhaqaaqi doonaa hadii la yiraahdo xaalad kasta oo emergency soo bariga degmada ka dhacdana gaarigaas insha Allah taala uu adeegi doonaa waxaana la jooga maamulihii MCH-ka qoolbulole maamule gaariga waxaan ku wareejinay waxaan u adeegi doonaa bariga iyo meel kasta oo ay baahi taalo waxaan daawac kasta iyo maxay ka bukaan kasta oo soo gaari doonta si emergency hadii la yiraahdo ka degma ahaanna wax kasta oo kale nooga baahtan diyaar badan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh injineer maxamed cabdi haadi aad buu mahadsanayay waan uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee karaamada lagu wareejiyay gaarigan isagoo dadkiisa u damqanaya waxa kale oo aan doonayay inaan halkan uga mahadnaqo dadkii u heelanaa in mar kastaba inay ka soo shaqeeyaan barnaamijkan iyo sidii xarunta caafimaadka qoolbulole ay u heli lahayd ambalaas u adeegay dadka deegaanka iyo xuduudda aadka u ballaaran ee xaruntan u shaqeyso xaaji cabdi bedel kow ka ahaa wasiiradii iyo mas'uuliyiintii kale ka qayb qaadanayay mar kastaba mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu mahadnaqayaa injineer maxamed cabdi haariyana si gaar ah baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad mahadsantihiin salli ala sayyidina maxamed bihi nastaciin umur dunya wa diin halkan maayo waxaan ka salaamayaa maayarka degmada Salaxley xildhibaanada agaasimo waxyeelada degmada Salaxley odayaasha iyo waxgaradka degmada Salaxley iyo dhaqaatiirta bahda caafimaadka halkan waxaa hore looga shaacinaa ambalaaskaasi haddii la yiraahdo la geyn doono qoolbulole oo u adeegi doono dad badan oo maartiya oo halka degan ama xuduudka ka talowsanaadaan ama xuduudka ha ahaadana Soomaaliland ha ahaadaan ama yaanaan way xuduudka dadka ka talowsan waa dadkeeni waa deegaankeeni wuu adeegayaa haddii qof rabasa ku xanuunsado wuu tagayaa wuu soo qaadaya cid waabin karta ma jirto meel ka xariman ma jirto xuduud ma laha dadka halkaas dadkeena degan ayuu u adeegi doonaa haddii la yiraahdo waa guul ay degmadu gaadhay aad iyo aad noo idinku hambalyeynaya odayaasha degmada Salaxley aad baan ugu hambalyeynaya aan leeyahay hambalyo oo guul ah gaadheen allana ha idinku asturo cidda ka xaynaysa gaariga iyo cidda gudoontaba Allah ku asturo oo u ducaynaa waa bil Ramadaan halkan waxayna taagan ambalaaskii Salaxley ee hore oo tii la keenay ambalaas cusub labada ambalaas waxay wada joogaan xarunta laga wada maamulaya markaa kan waxa la geynayaa qaybta bari ee degmada Salaxley way kala fogtay degmadu 58 waxay jirtaa 70 kilomitir meelaha qaar markuu halka ka dhaqaaqo si dabeedna kharashaadkii shidaalku intuba u yaraado iyo qofka gargaarka caafimaad u baahan laga soo gaarsiiyo ambalaaska nimanka dul taagan waxaanu u direynaa xagga bari wuxuu ka shaqayn doonaa degmada inay gari tuulaa inay gari libax qowdhama higlada laaqayrta celiyo iyo qoolbulole oo xaruntiisu noqon doonto qoolxulaale iyo qoolxulaale 6 kaam oo marka horeba markaanu xataa caawimooyinka bixinayno hadiya goraalo qoolbulole loo dhigaa 6 kaam ay soo gaaraya wixii kale dadkeena ka talowsan xuduudka sidiisa ayuu la jaan qaadayaa oo qofka lagu soo qayliyo si soo qaadaya waayo dhakhtarkan wuxuu adeegaa inta badan dadka xuduudda ka shisheeyay iyo dadka ka sokeeya inta uu adeegaa oo xarun ballaaran dhakhtarka weyn imikana qalab badan lagu kordhiyay markaas si ay isgaarsiinta caafimaadka u soo dhawaato ayaa waxaanu garanay haddaan nahay maamulka degmada Salaxley inaan xaruntiisa ka dhigno qoolbulole si uu kaamunka fogfog ugu wada adeego iyo inta dadkeenu gaadhay ilaa 29 ka soo qaad imika 29 waa laga doonaa halkan way la soo hadlaan dabeetana wuu doonaa si haddaba shidaalkii iyo kharashkii u yaraado intaba waxa loo door biday inaanu xaruntiisa ka dhigno qoolbulole una adeega bariga Salaxley oo dhan assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh hal su'aal xildhibaan haddaan ku weydiiyo maadaama ay arrintaasi aad muhiim u tahay deegaanada barigana ay u baahnayeen ambalaas gaar ugu shaqeeya miisaaniyadda ma ugu dartaan ambalaaska tusaalahaan shidaalku ku shaqayn lahaa darawaliinta dowladooda iyo kale waxyaabahaas oo kale caafimaadku had iyo goor waa emergency haddii saacadda ay wax yimaadaan
miisaaniyadda haddii hore ugu jiriya haddii kaleba waa loo samaynaya waayo waa caafimaad ma laha isagu gorgortan ya adiga goolaala caafimaadku waa emergency